maamulka degmada Qurulugud odayaasha iyo waxgaradka degmada Qurulugud oo kulan warbaahineed ku qabtay geedka caanka ay hadlayay degmada Qurulugud ee gobolka Buuhoodle taasi oo isugu soo baxeen sidii raali gelin buuxda uga bixi lahaayeen mid ka mid ah ciidanka qaranka Soomaaliland ee ku sugan jiida Qurulugud kaasi oo dablay hubaysanay dhaawac u geysatay waxayna u daba socdeen aana qabiil gudoomiyaha degmada Qurulugud Maxamed Cumar Faarax Jarkunaban xildhibaanada golaha deegaanka degmada Buuhoodle culimada waaweyn ee degmada Qurulugud odayaasha haweenka dhalinyarada iyo guud ahaan waxgaradka degmada Qurulugud ayaa falkaasi lagula kacay askariga ka tirsan ciidanka militariga ee Soomaaliland ku tilmaamay mid foolxun oo aan loo dul qaadan karin waxayna sheegeen in ay ka xun yihiin kana raali gelinayaan taliyaha guud ee ciidamada militariga Soomaaliland Nuux Ismaaciil Taani iyo askarigii falkaasi loo geystay waxayna ku dheeraadeen sidii wanaagsaneed ay uga qayb qaateen amniga iyo nabadgelyada deegaanada Qurulugud iyo Buuhoodle taasi oo aan la ilaawi waxaana ka mid ah hadaladoodii waxaanu halkan raali gelin iyo arrin murugaleba uga diraynaa ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland falkii ka dhacay degmada Qurulugud ee ahaa falka aad iyo aad u liita ama waxashnimada ah ee foolxumada lahaa ee ciidanka qaranka lagula kacay ee ay dileen ama dhaawaceen nimanka qorshaha barnaamij ay in ciidan qaran loogu tago iyo dareen loogu tago iyo dariiq loogu tago midna aad baan uga xunnahay taliyaha ciidanka qaranka ee taliyaha aaga ee askarta qoyskii uu ka dhashay guutada ciidanka degan Qurulugud ciidanka qaranku meel uu joogaba iyo qaranka Soomaaliland ba arrintaas aad iyo aad uga xunnahay oo si murugal uga xunnahay falka cidii geysatayna waanu daba soconaa hawsheedina waanu wadnaa si ballaaran baanu arrintaa u diyaarnahay inaan uga hawl gallo waxaanu codsanaynaa in waliba gacan laga siiyo gacan muglena laga siiyo baanu codsanaynaa arrintaa yaanu codsanaynaa wasaaradda arrimaha gudaha ka codsanaynaa iyo taliyaha ciidanka booliska iyo kuwa qarankaba in si mugle gacan looga siiyo baanu ka codsanaynaa aad iyo aad baanu uga xunnahay isagana waxaanu leenahay ilaahay caafimaad sareecan ha siiyo askari qaran oo shaqadiisii iyo barnaamijkiisii haystay wax dhibaato aan geysan aad iyo aad baan markaa uga xunnahay saa aad uga xuntiin baan uga xunnahay annaga inagu dhibaato badan tahay annaga inagu sii xun tahay waxaanu markaa maaragtay u sheegaynaa dhaqan qaranka iyo jamhuuriyadda iyo markaa maaragtay taliyaha ciidanka waxaanu u sheegaynaa arrintaa inaanu ka xunnahay dhacdadaas iyo kuwa la midkaaba aanu ka xunnahay arrintaas aad iyo aad baan uga xunnahay qarankana waa marka waa maartay waa ka raali gelin buuxdaanu ka bixinaynaa waxaanu raali gelinta u diraynaa ciidanka qaranka meel uu joogaba jamhuuriyadda Soomaaliland iyo qoyskii uu askariga dhaawacmay markii hore ka soo jeedayba dawladda dhexena waxaanu ka codsanaynaa inay gacan naga siiso sidii arrintaa wax looga qaban lahaa dawladda dhexe oo ay wasaaradda arrimaha guduhu kow ka tahay sidii wax looga qaban lahaa dhacdada wasaaradda arrimaha gudaha ay u taallaa wasiirina kaahin bay u taallaa dawladda dhexe ayaanu ku dhaliilaynaa waxqabad xumadeeda waxaanuna caddaynaynaa inaan arrinkaasi ahayn arrin qaran loo nusbeeyo ama ka soo baxay ama lagu eedeeyo ee uu ahaa inan uun si khaldan wax u tirsaday waxaanu halkan raali gelin ka siinaynaa ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland meel kastay joogaanba deegaanka iyo ciidanka waa la isku xantaayo ma aha deegaan laga filayay maanta in ciidanka waxyeelo kaga timaado laakiin waa talaxumadana waa ka raali gelinaa ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan maanta ka hadlaynaa dhacdadii u dambeysay ee ka dhacday degmada Qurulugud askarigii lagu dhaawacay ee ahaa ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ee militariga yaalla aaga Qurulugud aad iyo aad baanu arrintaa uga xunnahay waxaanu ka raali gelinaynaa dhammaan guud ahaan ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland waxaanu ka raali gelinaynaa taliyahooda ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland Nuux Ismaaciil Taani waxaanu ka raali gelinaynaa abaanduulahooda ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdirasaaq afguduud waxaanu ka raali gelinaynaa dhammaan qaranka Soomaaliland oo dhan waanu ka xunnahay waxaan raali ka nahay maaha dhacdadaasi kuma dhicin wax tala ah kuma dhicin waa dhacdo tala xumaale ka timi
wax deegaanka loo nusbayn kara maaha wax deegaanka lagu eedayn kara maaha wax deegaanku u dhan yahay oo ka tashaday maaha waa tala xumaalayaal dhalinyaro ah oo shakhsiyaal ah aad iyo aad baan uga xunnahay waana ka xunnahay waana raali gelin buuxdana waan ka bixinanaa waxaanu leenahay qarankoo dhan iyo shacabka reer Soomaaliland oo dhan iyo inta waxa xun nacab oo dhan waxa wanaagsan jecel oo dhan baan ka raali gelinanaa deegaankana waa la og yahay iyo ciidanka qaranka say isku ahaayeen horeba isugu ahaayeen ciidanka qaranka iyo deegaanka kan Qorlugud saaxiib fog bay ahaayeen hiil iyo hooba way la barbar taagnaayeen waa la ogaa inay hiil iyo hooba la garba taagnaayeen oo garab iyo gaashaan u ahaayeen imankana waxaanu leenahay oo taliyaha ciidanka qaranka u sheeganaa General Nuux Ismaaciil Taani inuu deegaanku kii yahay kii ciidanka jeclaa yahay kii adiga ku jeclaa yahay kii qaranka dhan jeclaa yahay waa kii weeye wala saaxiib ciidanka saaxiib dhow weeye halkii aad ku ogeyd uun bay imankana yihiin waanu soo dhaweynanaa kamaanta joogana waan soo dhaweynanaa waxa dhacayna maanta raali gelin buuxdaanu ka bixinanaa madaxweynaha qarankaanu ka raali gelinanaa guud ahaan ciidanka oo dhan baan ka raali gelinanaa qaranka Soomaaliland oo dhan baan ku celcelinanaa ayaanu ka raali gelinanaa ciidanka qaranka iyo degmada Qorlugudna waa la og yahay gacan saar bay lahaayeen saaxiib dhow bay lahaayeen hiil iyo hooba waa la barbar taagnaan maantana waxaanu halka ka cadeynanaa inaanu hiil iyo hooba sidaanu horeba ula barbar taagnayn maantana aanu la barbar taagnanahay inta dhacdayna wax deegaanka loo wada nusbayn kara maaha waa wax fool xun waxaan raali ka nahay maaha cidda samaysay baan raali ka ahayn dhacday baan raali ka ahayn yaa naloo nusbaynin yaan maanta naloo nusbaynin raali gelin buuxdaan ka bixinanaa waajib waxay leedahay haddii alla ku reeyo wanaagana ninka dhaawacmayna wixii xal iyo wanaag leeyahay sharaf ee la qaban jiray wanaag ee isla barbar taagi jireen waan la barbar taaganahay ehliyadii baan ka raali gelinanaa ehelkiisii baan ka raali gelinanaa isagii oo maanta ilaahay uga sahlay oo nool oo dhaawac baan ka raali gelinanaa cid wal oo ay qusaysaba ka raali gelinanaa waxa ay leedahay waajibana waanu heegan baanu la nahdo waa barbar taaganahay ninka ka tirsan ciidamada qaranka Soomaaliland dhacdada ku dhacday baanu ka xunnahay haddaanu nahay deegaanka raali kama nihin waxaan u tashanayna ma aha waxaanu ilaahay subxaanahu wa ta'aala ilaahay ninka ha caafiyo ilaahay subxaanahu wa ta'aala nabar xaqdarro uga dhigo ilaahay nabar xaqdarro uga dhigo waxaanu kaloo leenahay waxaanu aad uga xunnahay oo ka tiiraansan 100% dhacdada Qorlugud ka dhacday waanu ka xunnahay waxaanu ka raali gelinaynaa ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland meel kasta uu joogo taliyaashiisa iyo ilaa mancho ilaa madax waanu ka raali gelinaynaa waxaanu leenahay Soomaaliland baanu arinta uga tacsinaynaa aad iyo aad baanu uga xunnahay waxaanu leenahay ilaahay subxaanahu wa ta'aala qoyskiisina ilaahay waxaanu uga baryaynaa qoyskiisina raali gelin baanu ka siinaynaa waxaanu leenahay walaalayaal waxaynu ilaahay baa subxaanahu wa ta'aala keenay dhacdada ilaahay baa keenay idinkuna walaalayaal ku samraanu leenahay saasaanu qoyskiisina leenahay annana waxaanu halkan ku muujinaynaa inaanu ka xunnahay oo aad 100% uga xunnahay oo aanu uga tacsiinayno Jamhuuriyadda Soomaaliland oo dhan waxaanu leenahay arinta waa in dawladdu wasaaradda arrimaha gudaha arrimahan dhacaya ciidanka lagu leen wax ka qabataa si adag wax ka qabataa baanu leenahay waxaanu leenahay si adag dawladdu wax ka qabato oo aan maxay ahayto arinta meel adag dawladdu iska taagto arrimaha nooca u dhaca waxaan isugu nimid dhacdada ka dhacday Qorlugud ka soo gaadhay askariga inaanu ka xunnahay baanu muujinaynaa oo aanan raali ka ahayn waxaanu markaa u diraynaa ciidanka qaranka iyo taliyaha ciidanka qaranka iyo ummadda oo dhan iyo wixii ciidan qaran oo dhammaantoodba inaanu arinta ka xunnahay oo aanu aad iyo aad uga xunnahay oo aanan raali ka ahayn dhacdadaas soo gaadhay askariga caafimaadna ilaahay baanu weydiinay in ilaahay caafimaad siiyo ayaanu ilaahay uga baryaynaa waxaanu horeba u sheegnay oo qoladii ayagana hore u sheegeen inay reer Qorlugud iyo isku wacnaayeen ciidanka qaranku inay halkii iyo halkasii wacanba ay noqon doonto insha Allah ta'ala marka aad iyo aad baanu dhacdada uga xunnahay cidii dhacdada talaabadeedii iyo waajibkeediina waa lagu maqan yahay